aan ka maseersanahay waa xisbiga wadani waxaan uga maseersanahay waxa weeye sababtoo ah kama mid noqon karo laakiin waxayna tusaan dowladtus cusub waxayna tusaan heeso cusub waxayna tusaan system iyo star cusub oo ay ku taageeri karaan qofka ay ayaga wataan haddaba xisbiga wadani madaxan u saarantiin xisbiyada kale oo la tartamayna sidoo kale respect baan leenahay balse waxa 13 bisha November ee 2024 ee sanadkan ka dhici doona doorashadii ugu weyneed oo hore abid loo arkin hadda Soomaaliland waa excited times ee lagu jira waa ogtiin maalmihii usbuucyadii bilihii la soo dhaafay wada arkayseen in doorashadan tahay mid aan la mid ahayn mid kuwii hore uga dhici jiray 2002 ilaa iyo maanta doorashadan waa doorashada ay ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan indhaha ay saas ugu soo hayaan runaantii aan aniga waliba kamid ahay haddaba waxaa jiro dad tiro badan oo aniga kala ah oo xiisanaya waxyaabahaas oo kale hadda maanta aniga aan u dhashay maxaan ku radaa goboladaas oo u dhashan ama reer Soomaaliland ahay calanka kaliya aan lul lahaa maanta ama aan la soconahay waxaan la xisbiga wadani waana jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo qof walba si gooni ah taageeradiisa ugu soo bandhigaya baraha bulshada run ahaantii waa lagu kala guuleystay oo xisbiga wadani waxaan noqotay xisbiga kaliya ee run ahaantii aad ay uga muuqdaan markii loo eego xisbiyada kale way waxaad arkaysaa Soomaalida kale oo runtii laftigooda calankooda wato wallahi calmaanigu ma wadan laakiin dad Soomaali kale sidaad u aragtaa ma wax wanaagsan ba ma qaldan tahay ma ka aamusnaa mise taageero buuxa ayaa la siinaya commentigaaga ku ciilbax haddii aad tahay xisbiga kulmiye iyo xisbiyada kale ee shacabka ah ee Soomaaliland ee ka jira dhinacaasna respect baadin heena laakiinse dadka hadda xogo waxa u malaysaa in duufaanta cirre ee dadka dhan ay qaadayso ma fahanteen سلامنا respect